waxaan rabaa qola hadda oo dhalinyaro oo fadhiyo kulay ma aqaano committee la soo qoray ama message waxa la dhahay gobsani maxay u hadli weyday waxaan rabaa horta inaan idinka shaafiyo aniga waxa ku soo baxay doorasho dadban kursigu waa wax aad u fiican marka xasaanada dhadhamiso waxaan rabaa inaan soo noqdo dani iguma jirto doorasho dadban iyo culeyskeedii jiitankeedii xisbiyada marka laga sheekeynayo aniga hadda deegaanadan ka imaaday ee gobolada waqooyi ama Somaliland waxa la iska soo doortay waa xisbiyo intaan garaadaystay laayo inta maanta xisbiya la aadaya shakhsiyaadka taageersan baan ahay xisbi in la aado oo doorasho dadban laga gudbo challenge-ga ee leeyahay hebel waa in adeerka iyo oo kursibaad isku haysataan iyo horta isma nacbine wuxuu waa kursiga hebel muxuu kursiga igu yimiday ceebna ma aha hanku waxaan qofka bini'aadanka laga celi karin aniga ka gobsan ahaan hadii hankayga wax laga weydiiyo waxa uu la xasan sheekh qofka ku xigay madaxweynaha noqdo laakiin waanan noqon karin diiniyana leeyma banaynayo Soomaaliya dhaqankeedana waxa moodaa inaan u dhaweynba doorasho noocaanka waxaan hadalkayga murtida iyo comment-kayga ku soo aan rabaa inaan idinku soo aadiyo aan idinku soo gabagabeeyo dhalinyarada aan matalo oo xaqan aad ku sugan tihiin inaga danteenu waxay nagu jirtaa mustaqbalkeena iyo aragtideena fogba inaan xisbiye aadno marka waxa la rabaa xisbiye markii rabno inaynu aadno inaynu garbaha isqabsano oo ay doorashada la yagleele madatasho qaranka ka soo baxay inaynu garbaha qabsano amniga xaaladda amniga kale ee meelaha aan amniga la gaarayna ilaahay idinkii waxaan idin leenahay oo xukuumadda dan qaran aanu ku barbartaaganahay meel kasto amni darro ka jirto in amnigeeda la sugo oo la gaadho oo laga xoreeyo dabadeetana doorasho cod iyo qof la aado gobsanoon aaminsanahay hadda intii doorashadii dadbaneyd ay ugu yaraayeen xifaatanku aan aaminsanahay inaan soo baxayo 95% waxaan aad u aaminsanahay in aynu aadno xisbiyada aynu barbar taagnaano ta Somaliland maqnaashaheeda Somaliland xalkeeda loo waxa ku noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamed waxa la yiri jinninkii keena saara Somaliland wada hadaladeed iyadoo imaanin in la iraahdo oo doorasho cod qof la aadaya halkay aadi doonto dib baa la isaga wareysan doona wixii soo baxayna baarlamaanka ugu imaan doona marka aad ma maasantii committee-ga waa intaas